maanta waxa ducaa u baahan xogayaha cusub ducaa u baahan oo leeyahay ku soo dhawow fikir badan ku soo dhawow daal badan ku soo dhawow canaan badan ku soo dhawow ay badan ku soo dhawow laakiin kalsooni waa ku qabaa xukun inuu ka soo bixin doono intaaba waxaan kula dardaarmayaa xogayaha oo leeyahay saddex arrimood baa degdeg u baahan inaad wax uga qabato kow shaqaalaha haddaydan shaqaalaha mushaharka siin oo aydan qadimin shaqa ma soconayso marka koowaad inaad shaqaalaha mushaharkiisa heshaan inta maanta ka soo horjeeda ictiraafkeenu waa intii markii dalkani la soo noqoshada qaadanayay aan marka horeba ku faraxsanayn ka soo horjeeday horta maanta haddaan hadalku yar badiyo xogayihii hore dowladda hoose xogayaha cusubna insha Allah maalintu isna xilka wareejinayaan u badin doonaa haddii Ilaahay yiraahdo laakiin xogayaha hore maadaama aan soo wada shaqeynay sanadka runtii sidii halkan looga marxaati kacay waa nin degan buu ahaa aad u afkaaban dulqaad badan Soomaalidu waxay taraajid ma la marto oo jidiin ma la cunto waa run habeenada qaar baan banka wada seexanay markii arinta bankaanu ka shaqeynaynay dadaal badan iyo tacab badan buu galiyay xogayaha cusub warwar baa yar galay oo markii halkan baabuurta inta xun iyo lacagta deynta iyo laakiin waxaan u sheegayaa mar dhaweyd buu soo hor socday Cabdinuuro wantankii beriga hore markii xilka uu waday uu watay ayagu imkana kala tagayaa meesha marka inay dhinaca kale ka tusaan bay heeday meeshani custom bay leedahay dhaqaale badan ka soo baxo ururkii noolayso aan isna custom ka dhicin baa ku jooga mashaariic badan oo dawladdu ay hirgelisay baa soo socda runtii aan waxaan qabaa inaad ka nasiib badan tahay Cabdinuur sidoo imika baad uga nasiib badan tahay maalinta xilka lagu wareejinayay halagaasima ku wareejiyay oo dawladdu uga yimid maanta intaasoo wasiiriye intaasoo ayaa socda oo sii sagootiyay Cabdinuurna adigana ku soo dhaweeyay waan la dardaarmaa anigu maadaama nasiibku imika ii diiday inaan sharaxo golaha wakiilada ama deegaanka bay isu sharaxo laakiin ninkan talinayo waxaan la taliyaa waxaan raahdaa ninka wanaagsan aan la jeclada ka qabo waxaan raahdaa war Hargeysa iska sharaxina salax iska sharax sababtu waxa weeye salaxna way dihin tahay waxaana ku exercise gareyn kartaa awooddaada ku muujin kartaa magacaaga kor ugu qaadi kartaa waayo baahiyo badan baa maanta ka jira waad ku soo bixi karaysaa marka waxaan kula taliyaa dhalinyarada dambe oo raah war salax iska sharax sababtoo ah mashaariic badan waa ka hirgelaysa waana ka fursad wadaagsan waana ka fursad badan tahay Hargeysa marka walaalkay Cabdinuur waan sii duceynayaa maanta chance buu wuxuu helay caruurtiisa iyo qoyskiisa ayuu fursad u helay inuu xaaskiisa iyo caruurtiisa uu waqti la qaato siyaasadda ama xilka umadeed markaad qaado qofka hayuun baa garanaya waxa laga yaabaa inaad ubadkaaga habeenkiina goor damba timaado shaqadii aad ku habsaanto warwar badan ku hayo xaq aakhire iyo xaq adduunba culays badan baa maanta ka dhacay baan leeyahay Cabdinuur markaynu xagga Ilaahay iyo xagga adduunyada labadaba ka eegno marka isagu ducaa u baahan maanta waxa ducaa u baahan xogayaha cusub ducaa u baahan oo leeyahay ku soo dhawow fikir badan ku soo dhawow daal badan ku soo dhawow canaan badan ku soo dhawow ay badan ku soo dhawow laakiin kalsooni waa ku qabaa xukun inuu ka soo bixin doono intaaba hadduu Ilaahay yiraahdo agaasimaha maamulka iyo lacagta de waa xogogaalo maadaama maamulka iyo lacagta salaxay uu yahay waa xogaalnimadii halkan inooga waramay isagana waxaan rajaynayaa maamulka iyo lacagta uu ka galaan galbaday inuu tilmaami doono hadduu Ilaahay yiraahdo si shaqo badan loo qabto shaqada ugu badan ee idin taala waxa weeye waa cashuurta inaad dadkiina ku qancisaan in cashuurta bixiyaan iyagana ku celisaan oo maanta markaad cashuurta ku celiso bari waxa laga yaabaa in iyadoo waqtigii gaarin bayna cashuurta ka hesho waxaan kula dardaarmayaa xogayaha
والله هي صدح الرمود بعد دقدق وباهنا ذو حقوق قبته كو شقالها هذا شقالها مشهر كسين وأيضا مقدمين شقة مصر عنص مركب كوبادنا شقالها مشهر كيس حشان تلاعب كوباد قاضيسان تلاعب الله بعد وحويه أمنية تصدح هذا وحويه الله دجالك مخدرات دقموين تولوين كان waxa aad iyo aad waliba tuulooyinka xuduudku uga cawdaan oo anagu hargeysa joogna nooga soo cawdaan waa mukhadaraadka weyn waxaanan codsanayaa qofka mukhadaraad lagu qabto inaan laga daba iman ee lagu xukumo oo ku xukuntaan sheekh iyo shariif kasta haduu idin yimaado inaan sharciga marisaan hadii mukhadaraad lagu qabto waxa la wuxuu soo wada ma jireen wuxuu doonayay inuu baabiyo caruurteena inuu baabiyo ma doonayay marka qofka khamr ku qabataan iyo mukhadaraadka kale ee xashiishadaba magacu doono ha yeesho masubku soo ha sito cid doono ha noqdo sharciga ha la maliyo talaabana ha laga qaado cid quraan ha ka aqbalin xukun adag iyo maayarka iyo xubnaha u qaabilsan nabadgelyaduba ina sii deysaan taana waan kula dardaarmaya ugu dambeyntii waqti dambada min joognaa waxaan horta halkan ugu bushaareynaya waa run shan afar iyo soddon sanadood wixii aynu raadinaynay ee shan madaxweyne hore oo Soomaaliland ay raadinayeen ee mid waliba maalin soo gaarsiinayay waxa nasiibkiisa iyo dadaalkiisa uu siiyay madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland taasi waxay keentay in cadow badan oo aynu hore u lahayna ay intii hore in ka badan ay ordaan qaar aan aynaan ogeyn ay fadhiga ka kacaan marka waxaanu kaga bixi karaynaa midnimo iyo wadajir baynu kaga bixi karaynaa inta maanta ka soo horjeeda ictiraafkeenu waa intii markii dalkani la soo noqoshada qaadanayay aan marka horeba ku faraxsanayn ka soo horjeeday